ma tukan karaa salaatuleylka hawa tukan kartaa salaatuleylku waqtigiisu waa intaan la adaamin salaada subax adaanka dambe ee waaga sheegaya intaan u dhicin weeye waqtiga salaatuleylku marka waa tukan karaysaa waqtiga adaanka hore labada adaan u yaraan 40 baa u dhaxeeya waa tukan karaysaa su'aasha Axmed waxay ruuxa dumar marka la soo galbiyo alaabta la soo raaciyo yaa leh iyada iska leh wixii iyadoo ay soo qaadato ama reerkoodu soo raaciyo dabcan iyada iska leh iyadaana ku tasarrufaysa isaguna wixii uu guriga sii dhigo ku sii camiray buu leeyahay su'aashiis tala soo jeedin buu keenay markaas oo ah gaadiidka had iyo jeer la wada fuulay dadweynaha basaska iyo tagaasida yaryar dheegay isku wada hayaan dadku wiilal iyo gabdho rag iyo dumar halka akhlaaqdii way ku xumaatay wax wanaagsan weeye waa taladaasi waa tala fiican maamulkana in la gaarsiiyo weeye gudiyaasha in la gaarsiiyo in la kala saaraabaa waajiba laba qof oo kala ajnabi in dheeg iyo dhabta la isu saaro waa arrin aad u fool xun fitnaduna waxyaabaha ka timaado weeye xalna waynu heli karaynaa waa la kala fariisin karayaa in lagu tala galo weeye su'aashiisa kale waxay la xidhiidhay seeraha seeruhu sharci ahaan xaaraan weeye in xoolihii laga xidho dhirta ay cuni lahaayeen iyo daaqii ay cuni lahaayeen oo dadku dhulkii kala xidha in badan oo ka mida dadkiina bannaanka loo tuuro wax la wada leeyahay oo dadka qaarkood iska xuurtaysteen weeye si xaaraana marka xalkuna waxa weeye in la baabi'iyo ummaddu dhulka ay u sinaato wuxuu qofku oodan karaa inta wax uga baxeen tacabka uu geliyey ee aan cawska ahayn intaa wixii aan ahayn ummadda wadana wax ummaddu ay wada leedayna qofku uu haystaa marka waa arrimaha had iyo jeer khatarta badane fitnada iyo fawdada keenay la isku dilana weeye sidaa daraadeed cid wax ka qabatun bay laayihiin wax xalaala maaha wallahu a'lam wagaag khadka telefoonka iyo su'aalaha ay bulshadu soo weydiinayaan ayaan dib ugu noqon doonaa alow waxaan walaal ku weydiinayaa in ay yaraan eedow hayba u dilo soo tiri gabar uur leh haye marka gabadhu xaamil ah uur bay lahayd oo habeenkii la soo tagay anigu waan maqnaa laakiin marka nimo waan arkay in gabadhu uur leedahay haye ka bacdigiina uu la wareegay uu la guri galay gabadhu waxaan ku uur baa leedahay way baxsatay waana laga xoolo bixiyay diinta islaamku maxay ka qabtaa gabadha baanu dacweynaa ma ilaahay horti baan uga hadhnaa maxay haytay ilmaheedii shaqo ku malin maharmiyo noo hayaa والله أعلم. أدود ما سنتي. يستاك لحية هلو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. برامج كي طريقة توصل يا سوق الشيء وانكم مقلة يا مقعة قيالك تكسو هلا يسوي يسوي هاشا. أخي واحد ويدينا يا. أها. نيكا إن يا حرام كل على السنة كلها. أها. نيكا السنة كلها إنام. أها. شيخ واحد كم قال تفسير إذا أنت لفتة مهركم وقبنايا واجاك ألو وبرامج كي طريقة توصل مقعة قايلك تكسو هالليسو ألو والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعة قايلك تكسو هالليسو برامج كي طريقة توصل أياتكو كودا شرتاه شيخ وحويدين يا نحل السؤال ورنا يسا ما يقانكا أما حوكسدا النعمالكا شقال الله الدراء تدكي مسؤولين كدبنا العكتودي لما يريستان أو وقت بلان بيقالاتها إلا أفرع شيء دور إيغان أيه وواحد دهان العكت نو صوتي التلفون قال لك قبون وايا وقت دار بيساقو قالاتها مركها تاسمياني حاران نقرين وهاك ألو السلام عليكم. عليكم السلام. والله الشيخ waxaan weydiinayaa lacagtu walaal intee ku sokowda lacagta badalka ma laynto intee markay marayso aad ma santay عليكم السلام. الشيخ waxaan weydiinayaa salaada casar sunna ma leedahay salaada casari sunna ma leedahay waagaag halo khadka telefoonka iyo wali ku guda jirnaa halo السلام عليكم. عليكم السلام. لو أرن لقوم مرمى هذه شر لقوم مرمى الشيخ
weydiinaya odhanaya qofka qareen baa la socda qareen China baa la socda qaar waxay leeyihiin yaa dadka soo wada raaciyo dadka dhan ba la wada socda ma garanayso haye qaarna waxay leeyihiin qof isagu doonayo jinka la xiriir loo inbuu soo raacaya anigu laakiin waxaan aaminsanahay inaanu qareenkaasi jirin be labada malaga sharka iyo khayrka qore mooyana inaan wax kale aan aad baad maasantay sheekh Sadhow alxamdulillaah inantaas waxaynu soo weydiisay ruux dumar ah oo uur loo nin guursaday marka hore uurkaa yaale marka labaad way baxsatee maxaan yeelnaa uurku kol haddii aanu ka soo jeedin caqad saxiixa ama aan guur xalaalahoo uu ka dambeeyey jirina uu ka horreeyey guurka hooyadii buu ilmahaasi raacaya aabbihiisi kii dhalay aabba u noqon maayo waayo abtirsimadu waxay la socotaa guurka xalaasha ah inaad ka xoolo bixiseen oo la guursadayna waad sheegtay fakatayna marka taana ehelkeeda idinka waraysan doontaanoo haddii ay isdoonayaan inay iswataan dee waxay idinkala xidhiidhi doontaan ehelkeeda odayaal baa loo diriyo musaalaxa laga samayn dhexdooda inankaa kale su-aashiisu waxay ahayd waxaan maqlay buu idhi ninku gabadha ama inanta uu sina ku dhalo u guursan karaa ma fiicna runtii soo hadalqaadkeeda iyo wadwadkeedu laakiin culimmada qaarkood way sheegaan oo waxay leeyihiin dee mar haddaanay ku abtirsanayn waa ajnabiya waa qof kale dumarse waa badan yihiine wax inagu kalifayeen xaggaa loo kacaa ma jiro sulaymaan su-aashiisu waxay ahayd qofka shaqaalaha ayay dadka qaarkood warwareejiyaan oo mushqaayadiisii ulama dhaqsadaane ka warran rasuulkaa ka warramay sala allahu calayhi wasalam isagoo inaga waaninaya oo waxau idhi madlulqaniyi dulmun qofka wixii xoolihii lagu lahaa helaya ee ciddii ku lahayd siin karaya inuu dadka warwareejiyaa waa dulmi waa gardarro isagana daalin baa la odhanayaa layulu waajida yuxillu cirdahu waa cuquubat xadiid kale qofkiiyo wixii iska bixin karaya inuu dadka warwareejiyaa waxay bannaynaysaa in isaga la xalaashado sharaftiisa oo wax laga sheego iyo in la cuqubeeyo oo xabsi la mariyo intaba leannu isagaa dadkii ku xadgudbay saa daraaddeed qofku marka uu shaqeeyo kol hadduu shaqadiisii dhammeeyey waa in horay laga siiyaa mushqaayaddiisa sidaasuu xaq u leeyahay ummadduna isku aaminaysaa maxamuud su-aashiisu waxay ahayd lacagta shilinku inteebay ku sakoobaysaa waxay ku sakoobaysaa marka ay ilaa $4,000 u dhiganto ugu dhowaan $4,000 marka la bedelo wixii u dhigma ayaa lacagtii sakoobaya kolkay 12 bilood u soo wareegaan cismaan su-aashiisu waxay ahayd isaga casarku sunno ma leeyin jawaabtu waxa weeye haa laakiin sunnihiisu wuu ka horreeyaa waana 4 ragcadood sunno ka dambeeyana ma laha oo waxaabuu uu diidayba rasuulku sala allahu calayhi wasalam subaxa kadib iyo casarka kadib in salaada la bilaabo lala yimaado markaa qofkuna way fiican tahay mar hadduu faralkii gudanayo sunnayaashana inuu raaciyo oo sunnayaashu istabni iyo isbeer bay u yihiin salaadaha faralka ah ama cibaado kastoo waajiba mid sunnaa bay leedahayoo kolka qofka aakhiro loo miisaamo faralka wixii ka dhinmo waxa loogu kabaa sunnaha cali su-aashiisu waxay ahayd waxaan maqlay qofku inuu qariin jina leeya miyay jirtaa haayo suuratu qaaf buu ilaahay ku sheegay wa qaala qariinuhu haadaa maa ladaya catiid qaala qariinuhu rabbanaa ma adgaytuhu walaakin kaana fii dalaalin baciid qaala laa takhtasimuu laday waqad qadamtu ilaykum bilwaciid qariin malaga iyo qariin shaydaana buu suuratu qaaf ilaahay ku sheegayoo malaggu markuu qiyaamaa yimaado wuxuu leeyay ilaaha wixii aan ka qoray qofkan waa kan kale shaydaankuna wuxuu leeyay qofkan ilaahay oo maan luminine isaga ayaa ambashadii hallowga doortay saa daraaddeed waa imtixaanu
waxa shaydaanka la inoogu salliday imtixaan weeye rasuulkana sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu xaaskiisii caaisha ayuu arko cadhaysan markaa wuxuu yidhi ma shaydaankaagii baa kuu yimid maxaa kaa cadhaysiiyey markay sii weydiisayna wuxuu tilmaamay qof waliba inuu qariin iyo shaydaan ku lifaaqan leeyo oo lagu imtixaanay adiguna miyaad leedahay bay ku tiri nebiga sala allahu calayhi wasalam haa buu idhi laakiin waan ka nabadgalay oo ilaahay baa iga nabadgeliyey subxaana wa tacaala oo wax dhiba aniga iima geysanayo marka haddii laydhaha maxaa la inoogu salliday dee waa laynagu imtixaanayaa si nacaski iyo fariidku iyo geesiga iyo fulaygu ay u kala baxaan oo qofka kaa lagu salliday ka adkaada waa qof geesiyahoo fariida kii kalena waa mid halla oo imtixaankii ku fashilbay imtixaanka adduunyada aynu ku jirnuunbu qariinkaa laynagu salliday ka mid yahay wallaahu aclam waa hagaag waraaq laynoo soo qoray haddii aan waa aamina aw cismaan cige oo hargeysa joogta gabadh jaadleeyah ayaa dhar ii keentay dabadeed dharkii baan asay ku qaaday markaan ogaaday inay xaaraan tahay ayaan gabadhii jaadleeda ahayd badh lacagnimo ku siiyey badhkii kalena intan iibiyey ayaan sadaqa ahaan u bixiyey markaa sheekh asaydaasi ma ii saxbaa mise waxbaa ka khaldan su-aashaasiina soo weydiisay dhinacii khadka telefoonka aan dub ugu noqdo iyo su-aalaha ay dhegeystayaashu sheekha soo weydiinayaan halow asalaamu calaykum. calaykum wasalaam. walaal waxaa weydiinaya sheekha dhow su-aalad baan weydiinaya su-aal waxa weya dhacday igu dhacday igula jooga Ethiopia haye qof xanuunsanaya arday sababa u qaaday oo maxaan dhahdaa deetana adigu jidkan taraagsi wada gala bas baan raacnay haye habeenii maalin baa adigu alaa kulli xaal baskina la sii socday dad aan muslim ahayna waan la socday oo maxaan dhahdaa markaa xilliyada salaadaha oo kale dhibaato weyn naga qabsatay waan gartay marka laba dhacdo igu dhacday man doonaya inuu sheekhay ka shaafiyo oo salaadii cishaayi anigoo weyse qabin roob fara badan dhulka ka daayo qoyaan fara badanna ka daayo qoyan yahay dhulku ayaan isla tukatidoo gaarigoo meel nagula xumaaday baan isla tuko markaa dhul aan daahir ahayn bay ahayd meeshaasi waan gartay dhulkuna qoyaan buu ahaa haye markaa salaadii cishaayi maxaan dhahdaa waxaan ka weysaysay inaan dhulka ku sujuudo oo adigu dhulkii kabahaygina waan xidhnaa maan sujuuda dhulka dhigin salaadiina waan la imey waan ku dhawaado dhulka balka warra sheekh halkaas nagaa saxday mise waa soo celinaya haye labaade kale xilligiisna salaadii subax ayaa waxa dhacday iyadana waxaan ku nadhiga ka codsanay inaanu weysaysano aanu tukano aanu dhulka u degno amaanu gabagabaysano amaanu tukanay weysaysanay haye marka wuu naga diido gaariga watay mushrika buu ahaa wuu naga diiday oo dataqasa waxa nagu noqotay salaada subaxna de lagama taagin karo xilligeeda inaan ku tukado kursigaygii baan go-aansada waan gartay marka nin ila socday uman xaggii jahada weydiiyey salaadaas maiga ansaxaysaa sheekh gaarigu wuu socday aad baad umadsantay su-aal kalaan hayaa haye oday adeerkay ah ayaa wuxuu siin jiray hooyadii buu biil siin jiray lacag biila dabeetana hooyadii way dhimatay dabeetana wuxuu jeclaystay in aanay ka go-in lacagtii hooyadii uu siin jiray haye marka qof ehelka ah oo maxaan dhahdaa qaraabadii ahoo dad laba qof oo ehelka ah oo qaraabadii oo masaakiina waan u qaybiyaa buu dhiye xasanaadkii hooyaday ma ii socdaa aad baad umadsantay iba ahaan inan baan dhalay buu dan yar ah oo aan sii siiya aad baad umadsantay halow السلام عليكم. calaykum wasalaam. sheekh waxaan weydiinayaa geedahan la qaado geedaha walaal geedaha dee baabuur baan ku qaadnaa waanu qaadnaa waxaan ka soo iibinaa dee shirkadaanu ka iibinaa haye markaa geeduhu waa geedihii noocee ama geedka caadiga ahaba waa geedahan caadiga haye halkaa bal walaal dee waxaa dembiga wax badan dee ka yarshikiyey waa gartay anna dee inkastaan ku iibsadaan ku qaadaan ugu rogaa shirkadaha waa gartay markaa moqoladii dhuxulaysatada ahayd baad heedan miya maya kuwa geedaha qaada geedaha waa hagaag halow halo assalaamu calaykum. calaykum asalaam nabar baa cagaa iga dhacay nabaro waa gartay dabeed nabaradaas waxay daktarku wuxuu yahay gebagabaysan aan wasiisanin haye marka salaadaas markaa waxa weeyaan meesha joogaan waa magaalada gudaheeda oo magaaladana meel nadiifa ma laha waa gartay gidaar baan ku gebagabaystaa haye sheekha waxaa weydiinayaa khayr laa siiyey arrintaas bal sida ansaxayso aad baad umadsantay halow
khadkii telefoonka ayaynu ku guda jirnay barnaamijka dariiqa toosan oo sheekh maxamed sheekh cumar dirir su'aalaalka ku soo weydiisaan calaykum wasalaam sheekh maxamed cumar dirno salaamaya waxaan idin weydiinayaa sheekh doorashooyin waxba waddankiina hada jeer ka dhaca haye dadku doorashooyinkan dadkan sharaxan qabiil bay ku kala taageersan nooca qiiqooda ogna haye bal dadkan qabiil dartii ama halaad afkaa u gelaya dadkii u canaayaya ama hadday dhagacniba timaado gacan u gelaya magaaladu way nagu fadhiya aad baad mahadsantay sheekh kusoo dhawo alxamdulilaah su-aasha aamina waxay ahayd markii aan asayda qaadayay ee ninkaygu dhintay dhar qaad laga iibiyey baan ku qaadee miyay asaydii iga burtay ama iga xumaatay may kaamay xumaan wixii xaaraan ka soo jeeda inaad iska ilaalisaa waa waajib inaad ka takhalustayna waad sheegtay asaydii marka waxba kaamay noqonin ee sideedii kale haddaad u dhammaystirtay 4 bilood iyo 10kii hengeftii haddaad u dhammaystirtay way kuu jirtaa maxamed su-aashiisu waxay ahayd anigoo sujuudi karayaan salaadaan safar ku jiray aanan sujuudin dhulka oo qoyanaa daraaddeed waxaa kaloo dhacday buuhi inaan kursigii ka degi kari waayo salaaddii kursiga aan ku tukaday markuu noo joojin waayo darawalkii labadaas su-aalood mar haddaad sujuudi karaysay inaad sujuuddaaba aheedoo dhulkana waxaad isaga dhigto haddii aad wax isaga dhigi kari weydana inaad kollayba mar haddaad karayso inaad dhammaystirtaga abay ahayd arkaanta salaadda iyo tiirarkeeda iminkana allaha aqbalo kol haddii aad meeshu nijaas ahayd oo aad iska daysay salaaddaa kursiga aad ku tukatayna kol haddii si kale aad kari weyday salaadda qofku markuu dayuuradda iyo tareenka iyo saaran iyo baabuurka ee loo joojin waayo ma ka tegayo wakhtigeedu ma dhaafaya siduu karaanbuu u tukanaya fattaqullaaha ma stadactum marka allaha aqbala iyadana sadaqan cid siin jiro oo marka ciddii dhimatay ehelkeedii unbaan u sii waday buuri oon u kala qaybiyaa iyaduna way wanaagsan tahay oo qofku inuu wax bilaabuu joogteeyo wax aad u wanaagsan weeye axabu alcamala ila allaahi adwamuhu wain qal rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam camal waxa u wanaagsan haba yaraadee camalka uu qofku joogteeyo markaa sadaqadaadu haba yaraatee hadday joogto tahay wax wanaagsan weeye sidiiq su-aashiisu waxayd waxaanu iibinaa buuhi geedaha wuxuu uga jeedaa cawska oo dee kuwan baxee dhaadheerna geeda waa la ydhaahdaa oo dad kuwaasa inta badan u yaqaanaa laakiin doog iyo caws ayaa iyagana geeda la ydhaa cawskaa isaga ah haddii aad ka soo guraysid bannaanka iyadoo dhulku aanu kuu xidhnayn oo daaqaa baxay ee hawray ee dhulkaa dooxyada ah ee iska furan ee ummadda u furan haddaad ka soo guratay wuxuu la mid yahay xaabadii kaynta laga soo guranayoo kale waad iibsan kartaa laakiin ta aan bannaanayn waxa weeye meel intood xidhato oo aad beer ood dhag ku siiso macnaa seero inaad tidhaahdo aniguba cawska ka guranaya cid kale kama guranayso su-aashaa xagga hore aynu ku soo jawaabnayoo hanti ummadi ay wada lahayd baad xidhatay markaa waa xaaraantaasi labadaasaa loo kala qaadaya waxaa kaloo iyaduna kuu bannaan oo cawsaad ka guran kartaa beerta aad beertay ee aad ka beertay khudrad ama geed weyn ama hadhuudh iyo arabakhi wixii la mida dhexdooda ama takaariyada ama eeriyadaa beeran dhexdeeda wixii cawsee ka baxay kaana waad iibsan kartaa oo wuxuu ka dhex baxay meel kuu xalaala waxaynu ku soo ururinayaa wixii aan seeraha ahayn waa la intifaacsan karaa laakiin seeraha cawska laga guraa sax maaha su-aasha cabdilaahi waxay ahayd dhaawac baan qabaayoo dhakhtarku gebagebaysa buu igu yidhi ciid nadiifana ma hayo ma isticmaali karaa gidaarka waad isticmaali kartaa culimmada qaarkoodna way qabaan laakiin si aad khilaafka uga baxdo bannaanka in ciida ka soo qaado oo nadiifa gurigana dhigo markaad isticmaalaysaan eed gacmaha saartana dhinac uga duw wixii kaa daadanaya muddaad iska sii wadan kartaa si aanu turaabka ama ciiddu mustacmal u noqon oo aanu kaaga xumaanin markaad ku gebagabaysanaysa ha ku dul daadanin wixii aad isticmaasha ha ku daadinine dhinac uga duw marka ciidduna way ku ooli taasaa bilaa khilaafa
labada madhaboodna way jiraanoo dee culimada waxay isku waafaqsanyiin in ciid lagu gebagabaystaa inay saxtay ama waajibtay taa waa isku waafaqsanyiin ta gidaarkay laakiin isku khilaafsan yihiin taa la isku waafaqsan yahay qaado wallahu aclam